عنك أتبرادي ورا الدبا تلقى هلايا رسمي ويا ويا رسمي ويا ويا رسمي ويا ويا رسمي ويا kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal meel kastoo dunida ka joogtaan halkan waa raadiyo rasmi codka shacabka bariga Afrika waxa la soo gaaray hadihii aan idin soo gudbin jirnay war wixii caalamka iyo dunida dacaladeeda naga soo gaaray waxaan warka caawa idinka imanayaa stuudiyaha raadiyo rasmi ku leeyahay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaan idin soo jeedin doona aniga waa Cabdikariim Qaamuus iyo wariye Burhaan Cabdillaahi oo igala daadihin doona stuudiyaheena magaalada Muqdisho qodobada warka ugu doorka roona waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo sheegay in aanay al-shabaab ka hor istaagi doonin horumarka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Marwo Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxaan ka disay ku soo booday oo loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbul xaakimka kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo maanta ka badbaaday isku day dil oo ay u geysteen 3 nin oo hubeysan xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo meel adag iska taaga go'aanka xukuumaddu ku diidan tahay shirweynaha talo qaran ee ay wadaan xisbiyada mucaaridkii dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab oo xalay gudaha u galay xabsi ku yaala magaalada Boosaaso qasaaraha ka dhashay qaraxii xalay ka dhacay hotel Maka al-Mukarrama oo sii kordhaya kuwaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorka roona haatan u diyaar garooba isagii oo fidsan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed ayaa maanta ka badbaaday isku day dil oo ay la beegsadeen 3 nin oo aan ilaa hadda la aqoonsan haybtooda Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed ayaa raadiyo rasmi u xaqiijiyay in 3 nin oo hubeysan ay ku weerareen hotel Lake Asal oo ku yaala xaafadda shacabka halkaas oo ay kula beegsadeen rasaas balse uu Ilaahay garab mariyay ma jiro wax khasaare ah soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye balse wararku waxay intaasi ku darayaan in dadkii goobta ku sugnaa argagax xoog leh soo wajahay dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isna la beegsaday isku day dil xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa sheegay in aanay sharciyada dalku diidanayn inay qabtaan shirka ay qabanqaabadiisa ku hawlan yihiin ee xaaladda dalka lagaga hadlayo waxaanay si cad u sheegeen in aanay u joojinayn dhawaaqa xukuumaddu ku diidan tahay qabashada shirkaasi afayeenka xisbiga wadani xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba ayaa sidan ku sheegay waraysi uu xalay khadka telefoon ku siiyay wargeyska Geeska Afrika waxaanu carabka ku adkeeyay in xukuumadda laga sugayo qodobo sharci ah oo ay shirkaasi ku baajin karto isagoo sidoo kale la sheegay in xukuumaddu ugu baaqayaan inay martiqaadka loo fidiyo aqbasho afayeenka xisbiga wadani oo ka hadlaya arrimahaasina waxa kamid ah hadaladiisii shirkan waxaan ugu talagalnay in cidda koowaad ee lagu casuumaya ee ka qayb qaadanaysa inay xukuumadda ahaato oo madaxweynaha ayaa lagu horeysiinaya oo golihiisa wasiirada ayaanu leenahay ka soo qayb gala gogashuna way u fidsan tahay markaas talada qayb ayay ku leeyihiin inay iska dhigaan in ujeedo laga leeyahayna maaha waana inay shirkaasi ka soo qayb galaan oo ay aqbalaan casuumadda xisbiyada mucaaridka ah oo ay yimaadaan doodana ka dhiibtaan laakiin maaha inay u arkaan wax iyaga lagu duminayo ama dalka lagu baabiinayo waa inay la shaqeeyaan xisbiyada mucaaridka oo ka hadlaya afka shacabka koone ilaa koone haatan aan idinku wareejiyay oo stuudiyaheena magaalada Muqdisho iyo wariyaheena Burhaan mahadsanid Qaamuus madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyay falkii qaraxa ee xalay ka dhacay ee ay kooxaha nabadiidku ay ka geysteen hotelka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho kaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac fara badan madaxweynaha ayaa yiri si kulul ayaan u cambaareynaa falkan arxan darrada ah ee ay kooxaha argagixisada al-shabaab ay ka fuliyeen wadada Maka al-Mukarrama oo ay dad aan waxba galabsan ay qaarna ku dileen kuwa kalena ku dhaawaceen ujeedadoodu waa shacabka galiya argagax oo aysan horumarka socda sii wadin laakiin waxaan si cod dheer ah ugu sheegaynaa nagama hor istaagi kartaan horumarka nabadda iyo maamul wanaagga aan ku tallaabsanay waana ku sii dhiiranaynaa isla markaana aan sii laba jibaaraynaa
dagaalka horumarka nabadda iyo maamul wanaagga ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh. madaxweynaha oo taxsi u diray shacabka ayaa yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaan halkan taxsi uga dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen intii ku dhimatay falka qaraxa oo ay gacan ka gardaranaysay. sidoo kale dhammaan inta dhaawaca ah waxaan eebbe uga baryayaa inuu dhaawacooda u fududeeyo oo ay dhaqso uga soo kabtaan. madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay shacabka inay gacan siiyaan hay-adaha ammaanka si loo afjaro ayuu yidhi dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee dhiigga dadka caadaysatay. wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo la rumaysan yahay in ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ka dagaalama buuraha galgala in ay gudaha u galeen xabsi ku yaala magaalada Boosaaso. warar soo baxaya ayaa sheegaya xabsiga la weeraray in ay ku xirnaayeen rag ka tirsan xarakada al-shabaab oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka maamulka Puntland muddo sii horeysay. qorshaha weerarka ayaa u muuqday mid lagu doonayay in raggaasi lagula baxo. iska horimaad kooban ayaa dhex maray labada dhinac. saraakiil dhinaca ammaanka oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa sheegay in shabaab aysan u suuro gelin ka miro dhalinta qorshahoodii ahaa inay la baxaan raggaasi, hase ahaatee halkaasi ay ku dileen taliye ka tirsan ciidamadaasi xabsiga. dagaalyahanada al-shabaab ayaa ka dagaalama gobolka Bari gaar ahaan buuraha galgala halkaasi oo la sheegay in awood badan ay ku leeyihiin dagaalyahanada hubaysan ee ka tirsan xarakada al-shabaab. qasaaraha ka dhashay qaraxii xalay ka dhacay hoteelka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa kordhay iyadoo weerarkan ay sheegteen xarakada al-shabaab. afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Korneyl Maxamed Cumar Madaale ayaa sheegay in qaraxan ay ku dhinteen ilaa 5 ruux 25 kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo tilmaamay inay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ruux doonayay inuu isku qarxiyo gudaha hoteelka Maka al-Mukarrama. Korneyl Madaale ayaa sheegay in ciidamada ammaanka intii ay ku mashquulsanaayeen baaritaanka ninka la qabtay uu qarxay baabuur banaanka hoteelka yaalay kaasoo uu xusay in la doonayay in dad badan ku dhintaan. ruuxa doonayay inuu gudaha isku qarxiyo oo watay laptopka ayaa wax ka qaldameen, isagana waxa qabtay dadkii hoteelka ku jiray oo u gacan geliyay ciidamada ammaanka. ninkaasi wixii uu diyaarsaday waa u suuro gali waayeen ayuu yidhi Korneyl Madaale. dhinaca kale afayeenka howlgallada xarakada al-shabaab Sheekh Cabdicasiis Abu Mascab oo la hadlayay wakaaladaha wararka ayaa sheegay in 2 qarax ay ka geysteen hoteelka Maka al-Mukarrama, isla markaana weerarka ay qaadeen uu sidii loogu talagalay ugu dhacay, iyadoo ayuu yidhi hoteelka ay beegsadeen ay deganaayeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya. wararkan waxaa cambaareeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo taxsi u diray dadkii ku dhintay, wuxuuna rajeeyay inay Ilaahay uu caafimaad siiyo inta uu halkaasi dhaawac ka soo gaadhay. qaraxii xalay ayaa waxa ku dhintay Cabdulqaadir Aadan Cali oo loo yiqiinay Dhuub, kaasoo ahaa arrimo fuliyihii safaaradda Soomaaliya ee Ingiriiska, isagoo ka mid ahaa hogaamiyayaasha qurba joogga Soomaaliya ee Ingiriiska. wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxay sheegayaan in cisbitaalka guud ee magaalada Nairobi la dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Foosiya Yuusuf Xaaji Aadan kadib markii xanuun ku soo booday. wasiirka oo la sheegay inay halkaasi kaga qayb galaysay shir looga hadlayo arrimaha qaxoontiga oo ka furmaya Nairobi ayaa la sheegay in marqura xanuun degdeg ah ku soo booday, hase ahaatee sida la sheegayo iminka wasiirku aad ayuu u fiican yahay, xaaladeeda caafimaadna way ka soo reynaysaa. dhegeystayaal intaas waxaanu kusoo gabagabaynaa war wixii aanu ka haynay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo idinka imanaya xafiiskiisa magaalada Muqdisho. iminkii haatana waxaa idinku wareejinayaa stuudiyaha Gabiley iyo qaamuuska qarniga
oo halkaas idinka sii qamba qaada warka muqdishona waxa idin akhriyay burhaan cabdulaahi. mahadsanid burhaan. dhegaystayaal waxa la soo gaadhay gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijkeena caawa waxaanu warka caawa idinka imanayay istuudiyaha raadiyo rasmi ku leeyahay magaalada Gabiley iyo wariye burhaan oo istuudiyaheena magaalada muqdisho igala daadihinayay. waxaan idin leenahay intaynu warka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Helaya, helaya.